kulanka golaha wasiirada oo khamiis kasta toddobaadkiiba ka qabsooma xarunta madaxtooyada Puntland ee Garowe ayaa toddobaadkan waxa garwadeen ka ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas kaas oo inta badan looga hadlayay xoojinta amniga xiriirka Galmudug iyo Puntland maalgashiga dalacsiinta ciidanka kontaroolka degmada Boosaaso ee shalay gacanta ku dhigay agab walxaha qarxa kulankaas oo saxaafadda dibadjoogkeed ayaa waxa ujeedada kulankaasi uu warbixiyay saxaafadda afhayeenka xukuumadda Puntland Cabdullaahi Maxamed Quraan Jecella shirku waxa looga hadlay qodobo dhowr ah oo ka mid yihiin amniga dawladda Puntland waxay golaha xukuumadda dawladda Puntland ku dheeraadeen in dawladda Puntland iyo ciidankeedu diyaar garoobayaan ka hortagga burcadiimeedka al-shabaab oo isku dayaya inay waxyeeleeyaan shacabka Puntland ee nabdoon iyo magaalooyinkooda feejignaan ku jira dhammaan ciidamada dawladda Puntland sidoo kale waxa madaxweynuhu hambaliyo u diray bogaadiyeyna ciidamada Puntland guud ahaan gaar ahaan ciidanka gobolka Bari oo labadii mar u dambeysay qabtay qaraxyo waaweyn oo la rabay in wax lagu yeeleeyo shacabka Puntland ee nabadda ah sidoo kale madaxweynuhu wuxuu u ballan qaaday inuu siinayo dalacsiin iyo sharaf maamuus sharafeed ciidan askarigii ku dhintay qaraxii Boosaaso iyo askartii qabatay qaraxii hadda u dambeeyay ee la qabtay shalay 31 May waxa kale oo maanta golaha ansixiyeen xeerka garsoorka dawladda Puntland oo ah xeer dastuurka Puntland uu qorayo isla markaana dhigaya ilaalinta xeerarka garsoorka iyo madax banaanida shuruucda garsoorka sidoo kale waxay dawladdu ka hadleen xukuumaddu ka hadleen inay jiraan qodobo xeerar hor yaala baarlamaanka federaalka loona baahan yahay in baarlamaanku xeerarkaas la iskaga yimaado la iska wada arko waxa kale oo laga hadlay safarkii madaxweynaha dawladda Puntland oo Yurub uga soo noqday oo madaxweynuhu ku bogaadiyay qurbo joogta Puntland sidii ay uga qayb qaateen abaaraha sidii sharafta badnayd ee ay waqtigii gurmadka abaaraha soo gurmadeen waxa kale madaxweynuhu ugu baaqay in dalkooda dhistaan oo ay yimaadaan sidoo kale waxa goluhu ka hadlay xiriirka u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo xukuumaddu ku bogaadisay hanaanka horumarineed ee hadda ka socda Galmudug isla markaana ay xukuumadda Puntland sheegeen inay diyaar u yihiin inay waxyaalaha u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug si silmi ah oo nadiif ah loo dhameeyo waxa kale oo warbixin laga dhigay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta oo shaqooyin badan soo qabtay wuxuuna madaxweynuhu maanta magacaabay guddi wasiirra oo loo magacaabay cabashooyin ka imaanayay ganacsatada reer Puntland oo gaadiidka oo ka cabanayay in wadooyinka iyo maaragtay muxuu ahaa cabashooyin noocaas oo kala in arrinkaas la xalliyo isla markaana ganacsiga Puntland iyo ganacsatada Puntland ee wax caqabada iyo wax shida isla kulmin waqtiga ay marayaan wadooyinka dhaadheer Ahmed Sham Hon Cable TV